xarunta weyn ee cilaajka Daarutawba iyo Sheekh Rusheeye Yare caasimada dalka Kenya ee Nairobi. Dunida imtixaane haddii ay ilmahaagu in yar ay qandhadaan ba isbitaalaad ku ordayso irbadiina u keento balse aysan ka qaadin umalkii jilcinayay. Anigu wayga su'aale Ilaahay amarkiisa kitaabkii ummadeena Allahooda u keenay dastuur suu ahaado iyaguna uu daweeyo ayaan maad ku bilaabi awlaadaadii hoyga ibliiskii ambinayay xasadkii isha saaray ee u diiday wanaaga sixirkii linkooda asraarta u geeyay intaasoo aan fariira quraanka asalkiiya inuu daawo ahaado idilkoodna dhameeyo ilaah baana cadeeyay ee kitaabkiisa ku sheegay ummadda dhibka haysta ee beheena ka qaadee inagu waynu ogaanay aqbalkaanu ku duugnay inuu Sheekh Rusheeye Ilaahay amarkiisa sabab uu uga yeelay ummadeena islaamka shayaadiin ku istaagtay aayaadkii rabbigeena iyo tahliilu ku rusheeyay idilkood ku daweeyay ogeysiiska kaleeto ilaah baa wax daweeyo dadaalna waa u diyaare agaha Daarutawba waxaa kaaga adeegi idilkood dadka jooga iyagoo jin la liita ayuu daawo Ilaahay uga yeelay Rusheeye dabadeedna adeegii sheekha uu hayay bay iyagiina dhankooda ka abaabulayaan waa ilaah mahadii haddii aad dal fog joogto dhulka meel u xagayso aragaaguna liito isbitaal ku daaline ticket ayar u gooso fiisahaaga adkayso internetna adeegso oo la xiriir Daarutawba uu imow Sheekh Rusheeye Ilaahay idankiisa adigoo xamdinaya aqalkaaga u laaban xarunta weyn ee Daarutawba waxay shaqaynaysaa muddo ku dhow 7 sano fadhigeeda ugu weyn wuxuu ku yaalaa magaalada Muqdisho halkaasi oo ay ilaa iyo hadda ka shaqaynayso waxaana jira xarumo kale oo waaweyn oo laga furay caasimadaha dalal kale sida dalka Kenya caasimadiisa Nairobi muddadaas ay jirtay xarunta Daarutawba wuxuu Rabbi subxaanahu wa ta'ala caafimaad buuxa ku siiyay kumanaan muslimiin ah oo la ildarnaa xanuunada jinka sixirka isha iyo xasidka xitaa waxaa jiray dad isbitaallo waaweyn oo dibadda ah loo qaaday waxna laga qaban waayay oo halkaasi ay keeneen ehelkoodii oo quus jooga dabadeed Sheekh Rusheeye Yare oo Rabbi jalla jalaaluhu kaashanaya ayaa soo celiyay rajadii ehelkii dhibanayaasha oo quus ka joogay nolosha awlaadooda dhammaan Soomaalida ku dhaqan dalka Kenya waxaan ku wargelinaynaa inay ka faa'iideystaan xarunta Daarutawba oo uu idin joogo Sheekh Rusheeye Yare oo haatan ku sugan dalka Kenya caasimadiisa Nairobi xarunta waxay ku taalaa xaafadda Islii agagaarka Burhan Estate wixii faahfaahin dheeraad ahna muuqaaladeena dambe ayaad ku arki doontaa